taliyaha guutada 11aad qaybta 43aad ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Cabdi Maxamed Sahl ayaa xilalka u kala wareejiyay taliyihii hore ee ururka 67aad ee guutada 11aad qaybta 43aad ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha cusub ee ururka 67aad ee guutada 11aad qaybta 43aad taliyaha ayaa kula dardaarmay ciidamada inay la shaqeeyaan taliyahooda cusub iyo saraakiil xigeenka iyo askartaba waxaan codsanayaa in lala shaqeeyo taliyaha iyo abaanduulaha waan codsanayaa waa nin waaye arag ah sheekha la yiraahdo Sheekh Bashiir waa nin culummo ah waa nin wax badan inagu soo siyaadin hayo xaradu dhax seexan doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo soo dhawow xarada yuu dhax seexan doona noloshiinu ogaan kan xanuunsan buu ogaan kan shaqada fiican buu ogaan kan googoysku baran ciidamada waxay ku jiraan heegan 100% dib u habeynna ciidanku ku jiraa dib u habeyn iyo dhismo iyo tababar baad galeysaan hadduu Ilaahay raali ka noqdo wax badan oo wanaag ah oo waan sugaynaa oo ciidamada hal la wada shaqeeyo hal iscafiyo Sheekh Bashiir maanta wixii ka horeeyay warqad cad oo nin kasta oo dambilaan uu yahay yuu la wareegay nin walba waxa uu shaqaysto iyo askarinimadiisa iyo amar qaadashada iyo waajibaadka askariga laga rabo ama sargaalka laga rabo yuu kula xisaabtami doonaa sidaa darteed waa in lala shaqeeyaa Sheekh Bashiirna waa Cali Sheekh Bashiirna waa taliye urur waxaan rabnaa in lala shaqeeyo saacadan Sheekh Bashiir waa maqli saacadan wixii ka dambeeyo wixii raboor ah Sheekh Bashiir baa loo keenay wixii tala ah Sheekh Bashiir baa loo keenay madaxdiina wakaas dad Umar Baruush idaacada codka ciidamada qalabka sida magaalada Dobley.